marka asaga wuxuu leeyahay macna ka hadlaya xaquu marka macna imaanaya alfaadi buu sixilaya alfaadi ilmaha yarkaayo amriidiyada iyo duratul yatiimka iyo loo aqriyo ay fahmayaan ayuu waxa weey sixilaya xaquu ka gaaraya marka macna ka gaaraya asagu wuxuu yiri marka wuxuu yiri salaatullaahi maana hal muraadi ala khayril wara hadil ibad ayaa iska leh salaatullaahi maana hal muraadi ala khayril wara hadil ibadi ayaa la yiraahdaa bariqaan wax lagu qaslo weey marka bal macnaha uu yiraahdo midii sheekhu macna ilaada oo salliga nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri idaa naabana khadbun jasiimun mukhayyam wahaaja bina fi hawli shiddatina yamu fiidi asaga waxa weeye maashi mintaayad fiibu ku bedel nunaadi rasuulullaahi wan naasu nuyamu ala ya rasuulullaahi qalbi mutayyam bihusn bada fi wajhikal mutalammi waxay ahayd qasiidada awalkeedii ala ya rasuulullaahi qalbi mutayyam bihusn bada fi wajhikal mutalammi intaas waa Cabdiraxmaan Zeyl askalaha markaas sheekhan wuxuu ku daray awalka ka soo galiyay wuxuu yiri إذا نابنا خطب جسيم مخيم وهاج بنا في هول شدتنا يم ننادي رسول الله والناس نيم ألا يا رسول الله قلبي متيم بحسن بدا في وجهك المتلمع سو مجدي تصحيح اللفظ مقدم عن تصحيح المعنى سيسا دنبا معناها إن لا صحيح يلو أو معناها لا فهمه waxa ka horeyda lafdigu inuu saxiix noqdo marka hore oo lafdigu oo macnihi lafdigi harakadiisi dhawaaqiisi qoftu inay iska sugto laxniga labaad abyaada uu soo qaatay galaya waxa kamid ah asagoo Sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci qasiidadiisi Haadiyatul Arwaax tilmaamaya ayuu wuxuu yiri waxay yiraahdaan buu yiri rasuulullaahi maali min mujirin siwaaka yujiru min kurabi shidadi huwa rasuulullaahi maali min mujirin siwaaka yujiru min kurabi shidadi ufirsu rasuulullah min kurabi shayga siisa dham waxa weeye isimka tanwiin la'aan ma dhaco illa inuu maalayan sarif iyo isim alwata iyo mudaaf iyo ila sagaal baa la gaarsiiya meeshan hadda kama tiri karnaa sagaalkii midna ma waa lahnan min jihatil waxa weeye nahw wal lahnan min jihatil arudna waa ku sugan oo waxa ku sugan markii la taqdiiciyo wuxuu noqonayaa siwaaka yuji mufaacalatun rumin kurabi tawinta gada macnaha ala waxaan ku soconaa xaali rumin kurabi mufaacalatu oo noqonaya wuxuu gelshay kafi wax leeyahay asagoo hadda ma gelina waa macnaha carabka ka gelshay mufaacalatu ayuu yiri mufaacalatu marka maxay noqonaysaa makfuufa siisa dhama wasankaana oo mufaacalatu leeyahay la yukafu illa ma'al asb kafi lama gelsho illa inuu macsuub laga dhigo maahan mufaacaltun markii la yiraahdo ayaa waxa la oran karaa mufaacaltu markaas la oran karaa marka beydkaasna wuxuu laxniyay lahnan min jihati al-arud wa lahnan min jihati an-nahw waxa soo haray midka saddexaad wuxuu yiri salaatullaahi maana hal munaadi ala khayril wara hadil ibadi ayuu Sheekh Cabdiraxmaan Zeylaci waa macna saxiixa haddaan macnaynana macnaheedu wuxuu noqonayaa salaatullaahi ilaahi naxariistiis kaa'inatun ha ahaato ala khayril wara makhluuqa ilaahi midka ugu khayrka badan khayru warahaasoo haadil cibaadi adoomada hanuuninay ma mudadi ha ahaato naadal munaadi mid dhawaaqa oo salli nabi ku dhawaaqa ama digriga ilaahi ku dhawaaqa inta uu wax uu naadinayo dhawaaqayo macnaha sheekhu wuxuu leeyahay salliga nabiga ilaahi subhanahu wa ta'ala naxariistiis nabiga korkiisa haato inta waxa weeye qof dhawaaqayso oo salliga nabiga ku dhawaaqayso ama digriga ilaahi ku dhawaaqayso waa meesha ay oran jirtay carabtu yuqayyiduna al-ashyaa
ويريدون بها دوام أشياء قيديا دوام بين أولجدا معناها واصل إلى السلام دائما النبي عليه الصلاة والسلام horta macnaha sheekhu iyo lafdiga sheekhu sidaas oo ah asagu wuxuu yiri marka wuxuu yiri salaatullaahi maana hal muradi ala khayril wara hadil ibad ayaa iskale salaatullaahi maana hal muradi ala khayril wara hadil ibadi ayaa la yiraahdaa bariqaan wax lagu qaslo weey marka bal macnaha uu yiri midii sheekhu macna ilaada oo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaado inta uu qof dhawaaqayso digriga ilaahay ku dhawaaqayso inta muraad dhawaaqayo miya muraadka dhawaaqayo xuye macnaha uu yeelan lana halkaasna midaas aan uga gudbina midda afraad wuxuu soo qaatay qasiidadii cayniyada ahayd ee uu lahaa Sheekh Cabdiraxmaan Uzaylici iyo maca taqmiiskeedii oo Sheekh Qaasim Maraawi wuxuu yiri idaa naabana khadbun jasiimun mukhayyam وهاج بنا في هول شدتنا يمو في دي أسقى معوية ماشي من تاهد في بكبدل ننادي رسول الله والناس نيمو ألا يا رسول الله قلبي مطيم بحسن بدا في وجهك المتلمعي وحي أحد قصيدة أول كذي ألا يا رسول الله قلبي مطيم بحسن بدا في وجهك المتلمعي أنت اسمع عبد الرحمن زيل عسكرها markaasuu sheekhan wuxuu ku daray awalka ka soo galiyay wuxuu yiri idaa naabana khadbun jasiimun mukhayyam وهاج بنا في هول شدتنا يم ننادي رسول الله والناس نيم ألا يا رسول الله قلبي متيم بحسن بدا في وجهك المتلمعي سو مجدي بصيغة اسم المفعول اسم مفعول صيغة سوء استعمال تلمع مرك لا معنى إلى مروح النقطة تلمع بمعنى اختلص وحبو ضفي مركز هو معدد ويان اسم مفعول بيقاضنا يسا اسم مفعول لو لقد السكرة مرنا وحي النقطة واقفي ومدة ما أنت شيخ وجود شيخ عبد العزيز زيلعي لا تتعدى ولا يمنع عن اسم المفعول من وحوي قدبته اسم مفعول لا ما دسه ما لا دسي كره marka maxay tahay bada fi wajhika mutalammi meeshu ka keenay asaga yaqaan asaga keeni doona horta ikhwata al-izza intaas ayuu ku laxnay waa intii uu soo qaatay kaliya hal bayd oo kala soo qaaday haduu kalba soo qaado lahaana waxaan iyo wax ka daran buu ka kicila laakiin samida ma aragtay waa ilaahay baa ka badbaadiyay marka ومن جهة اللفظ قلنا وحلنا تصحيح اللفظ مقدم عن تصحيح المعنى سيسدم بمعناها إلا صحيح يلو أو معناها اللي فهمه وحكاه الرئيدة لفظه إنه صحيح نقضى مركوري أو لفظه أو معنيه لفظه حركتيسي نواقيسي قفته إنه إسكسكته أيها وحوي شرطي marka asaga wuxuu leeyahay macna ka hadlaya xaquu marka macna imaanaya alfaadi buu sixilay alfaadi ilmaha yarkaayo amriidiyada iyo duratul yatiimka iyo loo aqriyo ay fahmayaan ayuu waxa weey sixilay xaquu ka gaaraya marka macna ka gaaraya